waxaan nahay dadka reer Laascaanood waxaan nahay dadka ka diiday dhulbaanta loo geystay ee qarana ee qool ee wax kasta la salaadiin ee suldaanada markii horena xukuumadda Muuse Biixi heede waxa uu muuqata xukuumad meel soo jeerinaysa hadduu sanahayn hadalkaas hadalkii Muuse Biixi ama habkii Muuse Biixi ninka wasiirka maaliyadda kulmada dhulbaanta uu ku dhaca lacag baa maaliyadda waxna ugu qabtaa ma jirto iskuul baa waxna ugu qabaa barasana ugu qaban biyaan loo dhaamin ma kuwa biyaadkana wada jifa inay dhulbaanta waa xawayaan taxawayaanimada kuwa u joogo ku arka diinta wax ka shaano diinta islaamka la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah annagu daraawish baanay kuwa ingiriis la dagaalamay isaaq muxuu yahay isaaq taariikhdu leeyahay waa maxay yuu la dagaalamay Soomaalinimadu hadday annaga naga dhabtahay isagana ay ka dhabtahay iidaga waxaan u sheegaynaa wiilkiinaas kelmadaas way ka dhacday reer Soomaaliland waxaan u sheegaynaa Laascaanood de annaga waxaan seelana lagu caayay lama caayin waxaanagu seelana lagu caayay balse waxaan ugu qaadayaa heerade in tan talaabo sharci laga qabanayo iyadu mid qaadan annagu qaad maaliin meel qaatayna daaman shaqada ku maaliin ganacsiga ugu weyn reer Soomaaliland laga bixiyo kasaga mushaarka laga siyaas kara ee kala bariyada iskale annagu ma khamrna ma qaadno hoygii nibaad nagu caydeen annagu gabdhihiinu ma gabdhaha caaymayno nimana caayban laakiin waxaan idin sheegaynaa inay habar yar iyo abtii aniga taas hoygiini tahay hoygiini weeye annagu taa ma naqaano gabar khamr xataa ma lihin khamr xabara ma lihin baan ku taas waa hoygiini abtiya taas way idinka dhacday insha Allah bilmala kariim annagu waxragayga haday ka aamuseen ay iska aamusayiin war xukuumadda Muuse Biixi magacaabay muxuu anaga nasiiyay dad baa muxuu nasiiyay laba wasiir masqaadar reebnu nasiiyay wasiirada asir arrimaha gudaha laha ee arrimaha dibadda laha ee maaliyadda laha idinka la nasiiyay ma khayran xaq bad u yeelatay